السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السلام أصحاب ملك ستوك نوشين. It is a good news ما شاء الله laga soo saaray wiilkii yarka ahaa ceelka uu ku dhex dhacay meeshii uu ku dhex dhacay godkii ama maxaa ii sheeg laakiin it is a bad news also because I don't think he survived. So let's listen. Workers have pulled a boy from a well he'd fallen into and been wiilkii waxay tiri waa laga soo saaray ceelkii uu ku dhex dhacay ama godkii uu ku dhex dhacay trapped there for about 4 days. 5-year-old 4 days na uu ku jiray afar bari ayuu godkaas ku jiray inta really godkaas ku jiray waxa lagu geeyay oxygen waxyaalo kala duwan oo loogu geynayay marka hadda waa laga soo saaray. Rayan was carried by first responders to an ambulance. waxaa la soo saaray first responderka waxay ku soo way soo bixiyeen waxayna soo saareen bay leedahay ambulance-ki. Unclear what his health condition is like. Crowds have been flocking to the village of Igran to cheer. waxay tiri xaaladiisa sida ay tahay lama oga dadka ayaa waxay dad badan ayaa waxay la hadlayaan xaafadii macnaha uu ka soo jeeday the village uu ka soo jeeday ayaa dadkii la hadlayaan dadkii macnaha waa su'aalay weydiinay. Imagine dadku waa faraxsan yihiin markii laga soo saaray wiilka ceelka laakiin rescue-ka markay intaysan wiilka markii la soo saaray immediately waalidkiisii ayaa la soo qabtay waalidkiisa loo keenay inay arkaan marka waalidkiisa reasonka loogu keenana meeshaas waa ku jirta inay arkaan inta aan dadka la arkinin ama aan lala wadaaginin macnaha xaaladda wiilka you know. On the rescuers, several attempts were made to lift the boy out of the well, but in the end, a horizontal trench had to be excavated to get him. waa la isku dayay wiilkan wax badan in laga soo saaro godka in the end ay tiri ugu dambeyntii horizontal goda excavated ayaa la qoday laga gees qoday oo looga galay ujeedaa saasaa lagu sameeyay god kale taa la qoday oo looga galay si looga bixiyo meesha. marka waa ujeeda ambulance-kaas wiilka lagu wada xaaladiisa sida ay ku sugan tahay. We will return to the story once we can get hold of our correspondent in marka waxay la hadlaysaa the other correspondent meesha jooga. Let's return to our top story, which we've been monitoring coming out of Morocco, where rescue workers have managed to reach a boy trapped in a well for the last 4 days, and we believe he's now been freed. Journalist maasha allah hadda isfree tiri meesha waa laga soo saaray 4 days ayuu meeshaas ku jiray godkaas. Imagine oxygen hawo waxba lahayn oo ku jiray cunugaas yarka oo 5 sano jira si kastana waa la isugu dayayay in laga soo saaro. Sab Al-Shami is at the site of that rescue operation. Just bring us up to speed on what's happening at the moment. nin kale waraysanaysaa. Hi. Unfortunately, the body of Rayan was retrieved out of the well and he was declared dead. wuxuu yidhi unfortunately nasiib darro weeyaan waa laga soo bixiyey Rayan godkii. Unfortunately nasiib darro ahayd godkii waa laga soo bixiyey laakiin wuxuu ahaa dead wouldn't macnaha unfortunately he was dead waa laga soo bixiyey. That's why reasonka ay waalidkiisii inta usoo qabteen ay ugu geeyeen godkii markii laga soo bixiyey dadka ugu horeeyay oo la tuso waxay ahaayeen waalidkii oo lagu samarsiinayo wiilkoodii because he was not alive ma nooleyn. waalidka maxaa loo keenay meesha because wiilka ma nooleyn waa ku dhintay godka uu ku dhex dhintay waa la isku dayay several attempt was made try badan la isku sameeyay wax badan oo ku dadaaleen inay soo bixiyaan laakiin wiilkani ugu dambeyntii waa laga soo bixiyay. He was free from the godkii markii laga soo bixiyana he was dead. That's why waalidkiisa loogu keenay wuu dhintay wiilka waalidkiisana loo keenay la hortusay macnaha reasonka waalidka loo keenay saas waay. It was not clear initially. People thought that he This was not clear initially. Belonging
ما لا فهمسنين واحد دعي, you know, it wasn't clear, it wasn't معدين. He was alive, but shortly after he was transferred to the ambulance wrapped in foil. The Moroccan Royal Palace issued a statement where they delivered the news and said that the king has. Anyway, because king boqor baa ilaahay baa boqor ayaa wadanka xukumo, isaga newskii macalinaha ku dhawaaqay and he declared that yani situationkii wiilka because walala socodsiinaya because rescue teamka iyo waxa meelba governmentiga dawladda kingka iyo waxbaa soo diran kin wuxuu kuma maqaanay marka anyway ka xaafadii wiilka ka dhashay ama uu ka soo jeeday village-kii aad ay u faraxsanaayeen oo happy u ahaayeen oo u boodboodayeen oo qof walba macnaha tuhunna waa iska jira cunuga ma dhimantay ma nool yahay xaaladiisu sidee tahay siduu ku sugan yahay dadku waa walwalsan yihiin moogtahay what they don't know or they suspect waxaysan ogeyn ama tuhunka ugu jirana spoken to his parents. It's a really tragic end. The village which had been celebrating this act of freeing Rayan did not realize until now when they went to check their TVs and read their phones, and suddenly it's gotten very quiet and very grim. The village waaday markii laga soo saaray qof walba uu farxayaa aad bay happy rain wax lagu farxo laakiin that's why the king issues the statement that he declared the boy was dead. People marka newski laga soo daayay telefonadoodii ka arkeen meeshii grim dadkii naxisay noqdeen waa isku dhaceen naxdin la wada aamus macnaha nabar aadan filaynin naxdin mooye naaqus ma la wadi la sheegi jiray weeyaan because nabar aysan filaynin ayaa ku dhacay waa wiilkii markii laga soo saaray meesha midha waxay yiraahdeen wuu nool yahay laakiin the reason waalidkiisa inta loo geeyay lagu samirsiiyay inuu wiilkan dhintay uusan noolayn lack of oxygen la-aan ayuu meesha ugu dhintay because 4 days na waa ku jira waa cunug yar oo 5 sano jira marka alxamdulillah rabbil caalamiin at least waa laga soo saaray waalidkiisina waxa weeyaan waa ku samreen xaafadiina waxa weeyaan at least in laga soo saaray oo wiilkoodii ay duuganayaan haddii ilaahay raali uga noqdo waa naxdin qof walbana waa dhimanaya kullu daaqatul mawd waa taabanaya mawdka laakiin ilaahay noo kala dheereeyo marka alxamdulillah waxaan dileeyahay usoo duceeya waalidkaas qalbigiisa ilaa qalbigooda ilaahay inuu u qaboojiyo guys intaasaan idinku dhaafahaya insha allah intaan dib u kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.